بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التوفيق الإسلامية بأوسلو تقدم لكم هذا الإصدار: الصراع بين النفس والشهوات، للشيخ مصطفى حاج إسماعيل. والآن مع مادة هذا الشريط. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في العقيدة، waxaynu war kooban ka sheegi doonaa masalada ku saabsan siraaca ama loolanka legdanka nafta iyo u dhexeeya shahwaadkeeda, inagoo adeegsan doona insha allahu tacaala qisatu aadam iyo qisatu yuusuf calayhim assalaam. darska koowaad ee maanta waxaynu adeegsan doonaa qisatu aadam. mawduuca kani muhim buu aada u yahay. sababtu waxay tahay haddii aynan nafteenna ka guulaysanin cadow kama guulaysan karno. qofka awoodi kari waaya inuu nafta bayna janabay, nafta dhexdiisa ku jirta, inuu xukumo, inuu dabdin karo, inaanu sii daynin. qofka awoodi kari waaya cadowna iskama xakamayn karo. walidalik bay culamadu had iyo goor waxay tilmaamaan jihaadu nafs ama naftoo lala jihaadama waxay ku horeeyaa bay yidhaahdaan shaytaankaba intaan la iskaadhin, ama si kale haddaynu usii tilmaamna acdaada iyo gaalada intaan lala diririn. idan haddaynu rabno islaamka mustaqbalkiisa inaynu in badan ka fakerno oo inuu islaamku soo noqdo dunida tan mar dambe casiis uu ku noqdo, mid ka xoog badan le uu noqdo, waxaynu u baahan nahay in qof waloo muslimiba naftiisa uu ka guulaysto, ama se naftiisa uu xakamayn karo, ama se uu maamuli karo. nafta oo la tahiraa, la nadiifiyaa, waxay ka mid tahay usuushii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi lagu soo diray. huwa aladi bacata fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إلهي wuxuu ku tilmaamay inuu rasuul soo diray diinta dadka soo gaadhsiinaya, qur-aanka ku dul akrinaya. waxaa ka mid ahaa asbaabaha nabiga loo soo diray wayuzakiihim, inuu nafta taskiyeeyo oo uu xumaha ka faydo. ilaahay wuxuu tilmaamayaa qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha. waxaa liibaanay qofka muhiimadda ku guulaystaa inuu nafta hagaajin karo. sidaa awgeed waxaan leenahay mawduucu waa mawduuc muhima. naftu shahawaat bay leedahay, waxay jeceshahay baa jira, laakiin waxay jeceshahay in la xukumaa oo loo talin karaa waa mas'aladaba imtixaanku uu ku sugan yahay ee aakhiro ama lagugu abaalmarinayo janno
ama lagugu abaalmarinaya naar walciyaadu billah. nafta ilaalinteedu iyo shaytaan inay lunto wuxuu u adeegsadaa waa laba shay un, ima shubha oo qalbiga degta aw shahwa, inuu yahay shaki qofka uu ku rido, iyo inuu yahay qofka oo carbada ay ku dhaco, qofka oo shahwadiisa xukumi kari waaya oo kan boob, kan dhac, tan fuul, lacagtan ururi, waxan qaad, wax walba xaaraan iyo xalaal u kala aabeyeeli waaya. masaladani markaa waxay ku fiican tahay maadaama aan nidhi qisaynu ka dhex eegaynaa bal aadam qisadiisu siyaabahay qur-aanka ugu soo aroortay qaar ka mida inaan akriyo. fi suurati taha ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala walaqad cahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu cazma waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ila ibliisa aba فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. قصدتنا القرآن كما يلقى أرورتي وحي إلهي تلمام يا سبحانه وتعالى نبي الله آدم إن ترينينج لسيني waayo qur-aanku wuxuu sheegayaa maxay iclaankii koowaad markii alla bixiyey inuu ku bixiyey in aadam loogu talagalay khaliifa fi lardi inuu noqdo. waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa. laakiin intaan dhulka la keenin jannadaa la geeyey. jannada waxaa loo geeyey inuu naftiisa garto meelaha ay u jilicsan tahay ee shaydaanku ka soo geli karo, meelaha shahawaatu nafsigu ay ka dhici karaan. walidalik baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya subxaanahu watacaala walaqad cahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu cazma. aadam ballan baan ka qaadnay baa ilaahay leeyahy, ballankii waa ilaabay ama waa dhaafay. walam najid lahu cazma, go-aan adag kamaanan helin baa laleeyahy subxaanahu watacaala. caziima ulilcazmi min arusul kamuu mid ahayn. insaanka marka wax la rabo inuu barto, haddii aada ugu sharaxdo theory yani nadariya, sharaxun haddaad ugu sharaxdo, asaanu waxa tajribaynin inta badan si fiican uma garto. masalan haddii mid idinka mida lasoo qabto oo la yidhaha waxa la rabaa inaad laaciba kura noqoto, kubadda saasaa loo cayaara, saasaa la yidhahdaa, saasaa loo laadaa, cagta halkaasaa lagaga dhuftaa, markay halkaa mariso saasaa la yidhaha, madaxa saasaa loogu dhuftaa. intaa khabiir ma ku noqonaysa? laaciba kura ma noqonaysa? diinta daris laguu fadhiisiiyo, laguu sharxo kubadda sida loo cayaaro, waa maya. yani caqliya waad fahamtay sidan loo laadiyo, saan loo ordayo, saan wax loo jarayo, saan loo dhigayo, taagtigeeda iyo cumuuman waad fahamtay. laakiin nadariye khaliya laguma noqdo maxay لاعب كرة. لابد من تدريب، وين هذا تدريب قاعدته وتجابسه مركز صاد نقوم كرسا محي لاعب كرة. وليبا التدريب كاسي واحد نعي دونا إن هذا مالين بصوفي عناطو مالين تهورات قفي دونتو صور رونان دونتو لغو توابرو كل بقف كاقا لغو شيغو. حين ذكرنا آدم صلوات الله وسلامه عليه إلهي تدريب بسوسي لبريي نفتيسه، لبريي عدويسه، لبريي مالها وضعيف كوية هي هدو الشيطان ينفي أي كهاجي كران أو كله مكره. سيدا وقد با إلهي جنة جاية سبحانه وتعالى. جنة مركي اللي جاية يدول كرامية كدب أي جنة تجي. إلهي وحوش جاي. إبليس كاسو ما عرفت با إلهي عدو بكوية إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إبليس
adiga iyo haweentaadaba cadowgu idin yahay baa ilahay yidhi jannada ayuu idinka saari oo fatashqaa aanad adigu markaa dhibaatoonin waayo jannada waxaad ku leedahay baa la yidhi inaanad gaajoon, inaanad qaawismin, inaanad haraadin iyo inaanad kulaylantoona intaba jannada waad ka helaysa. ama haddaad iyada ka baxdo intuba waa iman doonaa, gaajo iyo haraad iyo kulayl iyo wax oo dhan waa la arki doonaa. weliba dee adaa mas-uuliyadda qaadaya la tilmaamaya aadam haddaad tahay oo fatashqa yani lama odhan fatashqaa baa la yidhi, adaa markaa dhibtu ku raaci doonta. ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya subxaanahu watacaala aadan in la yidhi wayaa aadam uskun anta wazawjuka aljanna fakulaa min xaysu shi'tuma walaa taqraba hadihi shajara fatakuna min alظaalimiin fi suurati alacraaf. ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanahu watacaala in aadam la yidhi jannadaa cun, waxaad doonto ka cun, wax kaa mamnuuca jannadaas inteeda kale ma jirto halkaa geed mooyaane, wax aada u baahantoo kalena ma jiro. laakiin naftu hal geed oo aanu garanaynba wuxuu yahay ayuunbaa hunguri ka gala. janno dhan oo wax kastaaba ku yaalayn baa la yidhi waa fasaxa iyada saa doonta u gal, laakiin faqad geedka kan isaga ha cunin. geedkii ayuunbaaba la qurux badnaaday, la macaanaaday. waa hal geed, halkii geed unbuu noqday waxa lagu itixaamay. hal geedoo kaliya ha cunin, waxa kaloo dhanna waa kuu fasax ee meeshaad doonto ka gal. ilaahay wuxuu leeyahay fawaswasa lahuma ashayطaan ama fawaswasa ilayhi shayطaan fi suurati alacraaf iyo taah say ugu soo kala aroortay. waswasadu waa hadalka khafiga, waa sawt khafiya. shayطaan baa war u sheegay baa laleeyahy oo ku arrinka kan u tilmaamay. shayطaan arrinka kan markuu aadam u tilmaamayey fitrada bini aadamkee caadiga ahi xumaha ma aqbasho, fitrada caadiga. waayo ilaahay baa wuxuu leeyahy maxay walaqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim. insaanka waxaan u abuuray baa laleeyahy subxaana watacaala fi axsani taqwiim, si fiican. fitradiisa caadigii insaanka xumaha ma yeesho, walaakin si uu insaanku xumaha u aqbalo waa in shayga laga duwa xumanimadii oo la qurxiyaa, waa in dib loo qurxiyaa oo aan loogu muujin qofka caqligiisa inuu wax xun yahay si uu aqbali karo. ibliis farsamadaas buu khabiir ku ahaa, inuu wuxuu yahay waxaan ahayn uu ku sheego. waana shayطaanka ugu weyne dunida iman doonee basharkiina tuu ugu xariifsan yahay. bal ee culamadu ay yidhahdaan magaciisaaba ahaa dajaal. waa fitnada ugu weyne laga digo min addajl. waxay culamadu yidhaahdaan addajl ay atamwiih walkadib, waa wixii waxaanu ahayn loo ekaysiiyo dadka la moodsiiyo inuu caynka kan yahay. walidalik baa xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay ee xudayfa bnu lyamaan uu sheegayey, wuxuu nebigu ku tilmaamayay ina dajaalku waa soo bixi doona waina macahu maaan wa naara, biyo iyo dab buu wataa baa ilahay yidhi. faama aladii yaraahu nnaasu maaan fanaarun taxr. kay dadku moodayaan biyuhu waa naar wax gubaysaa ilahay yidhi. waama aladii yaraahu nnaasu naaran famaaun baaridun cadb. idan waxaa ku jira maxay? waxaa ku jira qurxin, waxaa ku jira shaygii xumaha. dadka lama yidhaahdo masalan wadcigaynu maanta ku nool lahay, xumaha waxa haala min ammaana baa la saaraa, waa la qurux badnaysiiya. waxaa lagu leeyahy sex discrimination ha samayni, qofku waa inuu xorriyadiisa lahaada. waxa la daboolayo o dhami waa maxay? waa nin baa nin fuulaya. laakiin fitrada qof waliba waa ogyahay in haddii la yidhaha nin baa nin fuulaya inay wax xun tahay. bashar aan garanayni ma jiro, laakiin waa inaan sidiisa loo odhana si kale waa in loo yidhaahda. bini aadamku angal kaloo wax ka aqbali karo
ama angal kaloo wax laga tusin karo waa in looga sheegaa oo aan looga sheegin angalka markiiba nafta bini aadamku ay kasoo boodayso. qadiyatu tasyiin iyo qurxin iyo khadaaca ibliis khabiir buu ku ahaa. waayo markii horeba sida qur-aanku inoo tilmaamayo waa kale qaala rabbi bima aghwaytanii lauzayinanna lahum fi lard. wuxuu ku dhaartay inuu maxay mas'alatu tasyiin qurxin inuu samayn doono oo wala ughwiyannahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin, oo dadkoo dhanna inuu lumin doono addoomaha ilaahay uu doortay subxaana watacaala oo khaaliska ka dhigay mooyaane. ilahay waa ka tilmaamaya dadka anban doona waqayadnaa lahum quranaa'a fazayanuu lahum maa bayna aydiihim wamaa khalfahum. shaydaamaan ku dari doonaa baa ilahay yihi u qurxiya xagga hore iyo xagga dambaba. idan insaanku sidiisa caadiga ah xumaha ma aqbalo, laakiin xumaha waa in sawir kale loo yeelaa. aadam ibliis markuu yimi muu ku odhanin waxaan rabaa inaan ku lumiyo, laakiin wuxuu ka soo galay meel lagu tilmaamo nuqطat dacfi albashariya, meelaha bini aadamku u jilicsan yahay ayuu kaga bilaabay. wuxuu ku yidhi hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla, ma ku tusiya geedka waaritaanka, haddaad cunto waad waaraysaa dhiman maysi. xub albaqaa waaritaanka insaanku uu jecel yahay inuu waaro oo aanu dhimanin. qof wal oo insaano dunida kor jooga maanta intuu jiray way la yartay. hadii la yidhahdo in leeg ha lagugu daro waxba kama qabo. geerida dadku wuu wada necab yahay oo geerida dadku dib uga soo wada jooga. aadam wuxuu ka bilaabay markaasi shaytaan inuu ka bilaabo naftu meelaha u jilicsantay ee shahwatu nafsiga ah. wuxuu yihi markuu tusaa geed haddii la cuno la waaro, hadi waaxida, iyo wa mulki laa yabla, iyo mulki aan isagu dhammaanaynba. labadaasaad sila helaysaa buu leeyahy. nimco badan inaad hesho, boortooyo, maal, xoolo, wax walba inaad hesho, iyo inaanad ka dhimanin. insaanka waxaa ka mida markaasi wuxuu jecel yahay waarista, inuu waaro insaanku uu jecel yahay. wuxuu kaloo jecel yahay insaanku aljaha walmaal albruuz, inuu muuqdo oo dadka ka dhex muuqdo, oo jaah iyo magac iyo boqortooyo iyo waxa kan uu yeesho farta lagu tilmaamo. waa min fitrati albashariya. inta ugu badanna kuwaasoo si xun loo adeegsadaa shahwaatu nafsiga oo dhami inta badan ka yimaada. kuwaasoo si xun loo adeegsado ayaa waxa ka yimaada waxyaabaha kan shahwaatu nafsiga lagu tilmaamayo intooda tirada badan leh. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu inaga daweynayaa markaa masaladatan. abuna aadam waa la tusiyey oo waxa la yidhi halkaa geedoo qura mamnuuca ha isku taabanin. shaytaanna waa qurxiyey oo wuxuu ku qurxiyey inuu u tilmaamo geedkan haddii la cuno labadii waxa uu baahnaaba in la helayo. qurxintiisaasi wax kasta uu ku qurxin karo wuu ugu daray. waqaasamahumaa inii lakumaa lamina annaasixiin. waxa ugu dhaartay inuu yahay kuwa naseexaynaya mid ka mid ah. keligii wax ma naseexaynaya, inta wanaagga u wado oo dhan bu isna waa waaxid min hadihi aljamaaca. dhaarna waa raaciye maadaama naftu waxay jecleed ay tahay aadam dhaartii allaba waa ilaabay. oo ilahay waa kale walaqad cahidna, laamka hore waa laam almuwataa lilqasam, kii alle waa ilaabay. laakiin waxaan ibliis uu kuuqinayo tirada badan leh iyo naftoo meesha u jilicsanayda, haddii labadaasi isu kaa helaan khatar baad ku jirtaa. hadday labadaasi isu kaa gargaarsadaan insaanku khatar buu ku jiraa. idan insaanka meelaha ugu khatarsanee laga hogaamiyo waa shahwaati nafs, oo waxyaabaha naftu ay jeceshahay. shayaaiinu linsiga maanta joogaana waa bahasha ay iyo jin iyo insiba isku daro, waa kuway ku takhasuseen in la qurxiyo, oo ama sida loo falsafadaynayo loo sharxayo ha noqoto, ama waxyaabaha xataa scientifically baa la isugu dayaya in wax badan lagu cilmiyeeyo, in laga dhigo
nafta shahawaadkeeda haddii aad dabdido inaad xataa xanuunsanayso o waalanayso. imka haddaad psychiatrist u tagto waxa koowaad ee kuweydiinaya mataqaana yani Freud fikradiisii baa ka dambaysa taxliili nafsi. Freudkii odaygii Jarmalka Yahuudiga ahaa noloshoo dhan ku saleeyey inay sagas tahay. walidalik psychiatrist kasta aad u tagtaa su-aasha koowaad ee kuweydiinaya waxa weeyaan naxaas ma leedahay, imise goor baad saga samaysaa? waayo wuxuu rumaysan yahay haddii aad saga samaynin in waalidu xagga ay ka timaadaba. naftan la cadaadiyey la caburiyey ee shahwaadkeedii loo diiday inay cuqad samayso nafsiya, cuqadkaasina akhiiran inay keenaan maxay inuu qofku waashaba. ala hada yani asaaliib cilmiya la rabaa in laga dhigo. waxa la gaadhsiiyey sida loo tasyiininayo loo qurxinayo inuu waxani tiro batay. ilaahina subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegayaa aadam meeshan trainingkaa lagu soo siinayo kow inaynan waaraynin. waaristan jecellay shajarati alkhuldiga loo sheegay inaan halkan lagu waaraynin. adduun baa la ydhaha waa meel la isugu itixaamayo. laakiin arrinta tani waa shahwa nafsiya. xaggee waa ragaba min ragabaati albashariya, waa doonista bini aadamka wax ka mid a. ilaahay meel kalu ku ballan qaaday doonistaa inuu kuugu dhammaystiro. wa fiiha ma tashtahi lanfus wataladu lacyun, meel kalaa lagu ballan qaado. walidalik tan markaad joogtaan baa ilahay leeyahy subxaana watacaala wa kullu nafsin daa'iqatu lmowt. shahwadan waxaanad isugu sii mashquulin, waa la dhimanayaa baa ilahay leeyahy subxaana watacaala. inaka mayitun wa inahum mayituun. ilahay wuxuu tilmaamayaa nebi maxamed adiguna waad dhimanaysaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, iyaguna way dhimanaya. haddaad adigu geeriyoto ma iyagaa waaraya baa ilahay leeyahy subxaana watacaala. cagsigeeda waxaa laynoo tilmaama si aad nafta u controli karto inaad u sheegto meel ay shahwaadkeedao dhan ka helaysaa inuu jirto janno la ydhaahdo. kow qur-aanka markaad jannada akrido meel kasta ku aroorta khaalidiina fiiha iyo jannat alkhuld iyo jannatu cadnin iyo daaru salaam iyo daaru qaraar iyo ilaahay magacyo badan buu ku tilmaamay oo dhammaantood sheegaya inay waarayso. waa daartii nagaadiga, waa daartii nabadda aan waxba iska bedelaynin, waa daartii sugnaanshiyaha. khaalidiina 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 baa daba taala. khaalidiina bilaash maaha. waxaa la ogaya min fitra albashariya inay ka mid tahay inuu jecel yahay waaritaanka. ilahay wuxuu leeyahy halkan maaha haddaba tii lagu waarayay. tan waxaad u baahan tahay intaad joogto siraac baad ku jirtaa, loolan baad ku jirtaa. ee loolankan inaad adkaysato naftan aad xukumi kartid. oo kow geeri aad u sheegto inay dhimanayso. dhadhan badan shahwadu yeelan mayso haddaad u sheegto inay caawa kaa bixi karto, berri inay dhiman karto, kuwii adiga kaa horreeyay inay dhinteen, dadba wadadan idin wada maray, inaanay geeridu kala aqoonin waa professor iyo waa sheekh iyo waa caalim iyo waa mid yar iyo waa mid weyn, nin waliba inuu dhimanayo. inaad nafta u sheegto meeshay waxaan oo dhan ka helayso inuu yahay maxay aakhira inay tahay, jannada lagu waaraa inay aakhiro jirto. culimadu waxay dhahaan insaanku jacaylka uu jecel yahay inuu sii waaro daraaddeed waa waxyaabaha keena bay leeyihiin maxay xidhiidhkan ragga iyo dumarka ka dhexeeya ee inuu nasl iyo caruur raadiyo. waa waxyaabaha keena bay leeyihiin xub ilbiqaagu. markuu ogaaday inaanu isagu waaraynin inuu taran ka tago. qofku hadduu waxba dhali waayo maxaa la ydhaha waa goblon oo waa kana maxaa ka goblamay. yacni waxaa la tilmaamaya kaanamaa jiritaankiisi uu dabar go-ay oo aanu baaqi lahayn. marka waxaad rabtaa xataa haddaad adigu dhimanayso inaad kasii tagto maxay wax baaqi noqon karaya. haddaad adigu dhimanayso inaad kasii tagto maxay magac waari may sida wara kaa hadha bay idhahdeen inaad magac kasii tagto. ilahay wuxuu ina baray nasli iyo waxaan oo dhami waa ziinat alxayaati dunya, inaynu kuwa khayr la raadino. waxa kaloo layna baray magacaynu ka teginaana mid khayr qaba inuu noqdo. wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin. ilaa uu magac fiican yani magacaad ka tegaysa inaanu magac shar noqon iyo macsiye inuu noqdo maxay mid khayru ku jiro iyo wanaagga inaad astaan u noqoto. inuu noqdo magaca aad ka tegaysa xub ilburuuz, insaanku inuu muuqdo uu jecel yahay. laakiin waxaa layna baray wajcalnaa lilmuttaqiina imaama. imaam oo ahlu taqwa inaad noqon karto inuu kaa noqdo kaad ku dadaalayso. waxaa layna baray meesha loolanka u baahani yani nafta jacaylka loo qabo waa waxa keena xaasidnimada iyo anaaninimada iyo kelinimada iyo waxaan oo dhan waxa keena. laakiin waxaa layna baray wax kale inaynu ku tanaafusno inaan noloshan ku tanaafusin. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون baa ilaha yidhi.
intuu janno ka warramay alla subxaana watacaala. waxay leenahay marka shahwaatu nafsigu adduunkan kuma buuxsamaan, meesha ay ku dhammaystirmaan waa janno. meesha ilaahay leeyahay wax kastoo aad doonto ayaad helaysaa. waxaynu u baahannahay waa mulki laa yablaa buu ibliis sheegay, boqortooyo aan dhammaanaynin. ilaahay wuxuu rabaa subxaana watacaala inuu inoo tilmaamo tan adduunku inay dhammaanayso. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إلهي وحوينه الشيء سبحانه وتعالى ورنولشنا الدنيا وردمي وسيدي بيها عرك فوق كي مادة ee dabeetana dhulka ku qasma, ee dabeetana geedaha soo saara, ee geedu haddana markiiba ay dhammaadaan oo burburaan oo xashiish dabayshu qaata ay noqdaan. caruurta iyo maalku dhammaantood baa ilaahay leeyahay subxaana watacaala waa dhaldhalaalka adduunyo un, laakiin albaaqiyaat asaalixaatu khayrun cinda rabbika thawaaba wa khayrun amala. albaaqiyaat asaalixaat subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo wanaagyada hadhaya kuwaas baa ilahay agtiisa lagu jeceliya baa layidhi. waxaa ilaahay inoo sheegayaa iclamuu anama alxayaatu addunya lacib walahu waziinatun watafaakur. waxaa la sheegaya subxaana watacaala war waxay ogaataan adduunkan dhammaantiiba marka la isku daro waxa weeyaan baa ilaahay leeyahay cayaar iyo lahwi madadaalo aan idhaahno. culamada qaar waxay yidhahdaan lacbiguna waa waxa caruurta, lahwiguna waa waxa dadka waaweyn leh. labada waxay yidhahdaan lacabkaaba laga yaabaa inuu qasdi ka dambayn karo biological oo qofku inuu koro oo uu u baahan yahay, laakiin lahwigu waa waxa dadku waktiga iskaga dilaan. waa intaa iyabaa la yidhi waxa kale dheeri waa ziino un inay tahay, dhaldhalaal inay tahay, iyo watafaakhurun baynakum watakathurun fi lamwaali walawlaad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نصوص القرآن كي وحي تلمامس شهوات نفسك إنه حكمين كرنو كلية marka aynu garanno adduunkan iyo qiimaha uu leeyahay, marka aynu garanno in laga tegayo, marka aynu garanno haddaad ururiso oo aad ka u maal badan noqoto inaad god ka galayso, marka aad garato haddaad dunidoo dhan ka taliso berri in godku ku hurran yahay xabaal yarna lagugu daboolo, markaad ogaato waxaan oo dhamay natiijaday leeyihiin waxay noqonaysaa inaad ibliis warkiisa dhegaysanin ah shajarati alkhuldi iyo wa mulki laa yabla, geedka waaritaanka iyo madaxnimada ama hantida ama maalka ama boqortooyada aan dhammaanaynin inay waxaasi oo dham yihiin wax dhammaanaya. waxaad garanaysaa inaad barato markaa inaad nafta la tacaashid, waa taskiya u samaysid. naftu ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa mar inay tahay ina nafsa la amaaratun bisu ila man raxima rabbi, inay xumaha dadka farto. waa markaa canaanka, waa marka hogaanka loo sii daayo ee waxay doontaba la yidhahda maxaad u baahantay, naag baad u baahantahay soo caawa, cun aad u baahantahay cun, wax walba marka loo sii daayo waa amaara bisu haddaad saa u dhegaysato. marna waxaa la yidhi waa lawaama. lawaama waxay tahay baa la yidhahdaa marka ay xaq iyo baatilka kala garato ee isku dayda inay xaqa raacdo, ee haddii gafafka qaar ka dhacaanna intay dib u toobad keento mid canaan badan oo nadamku la saaxiib yahay oo ka toobad keenta xumaha markay gaadho. waa nooc min atarbiya markay heshaabay halkan soo gaari kartaa, xad bay gaari kartaa ay noqoto mutma'ina, nafsi lmutma'ina tuxasiloon oo qadarka raalli ku ah oo ilaahay wuxuu u qoro aaminsan oo mutma'in oo ilaahay warkiisa aqbalaysa oo shaytaan iyo warkii aan u dhegtaagaynin, xadkaana way gaari kartaa. laakiin masaafo dheer weeyaan intaa dhexdooda, waa masaafo aada u fog oo u baahan tarbiya tiro badan leh, oo u baahan inuu qofku nafta la loolamo
inuu nafta la loolamo. sida nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamaya xadiidku tirmidi warinaya xasanun saxiixa uu ku tilmaamay, sheekh alalbanina uu sugayo, ina likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati ilmaal. ummad waliba fitnay leedahay iyo wax lagu itixaamo. aniga ummadayda waxyaabaha lagu itixaamay ugu waaweyn waxaa kamida buu nebigu yihi xoolo. walidalik buu saxaabada nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyagoo baahnaa oo baahidu ay ka ahayd sima aada uga muuqata, iyadoo saxaabada ay jireen intaasoo saxaabi aan guriba lahayn ee masaajidka dacalkiisa ama xaggiisa dambe iska seexda, ahlu sufa masaajidka dacalkiisa dambe iska seexda, iyagoo ay ahaayeen dad inta ugu badan leh ay go' qura leedahay. jaabir ibnu cabdillahi xadiiskii bukhaari atarku warinayay tilmaamayey ee nagama mid ahayn mid laba go' lahaa buu leeyahy. yani waa sanaaduuqdan dharka inoo toonsan maaha, waa laba midh nin lahaa naguma jirin buu leeyahy. waxaanu wada haysanay buu leeyahy go' qura ama hal mar oo keliya, iyadoo dadka badh ninka iyo gabadha isqabaa aanay wada haysanin mare ay salaada ku wada tukadaan, ay tahay in midkoodba mar tukado si uu ka kale marada ugu u siiyo inuu cawradoo dhan ku asturo si uu u helo. iyagoo nolosha noocaasiya soo maray oo guriga nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi aan laba bilood dab laga shidin, dabba la shidan, ayuu haddana wuxuu nebigu lahaa, ina mima akhaafu calaykum min bacdi. waxyaabaha ugu weyn ee aan idinka cabsanayo aniga gadaashay waa in ilaahay idin fura buu nebigu yidhi zahrat addunya wa ziinataha. nolosha dhaldhalaalkeeda iyo macmacaankeeda in la idin furo ayaa ah waxyaabaha ugu weyn aan idinka cabsanaya buu nebigu leeyahy. yani wuxuu nebigu u arkay inay nooc min alfitna tahay, nooc min alimtixaan inay tahay imtixaani hadihi lumma. ummadda tan shahawaatu nafsiga had iyo goor ku dhibka ahi inuu ka mid yahay maalkan la ururinayo ee xalaal iyo xaaraan aan loo kala eegaynin, ee mujarad jamcintiisu. ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya zuyina linnaasi xubu shahawaat. dadka waxa loo qurxiyey baa ilahay yihi subxaana watacaala xubu shahawaat. ashahwaat waa masdarun uriida bihi mafcuul baa looga jeedaa, yani ashyaagii la jeclaa ayaa loo qurxiyey. waxaa la yidhaahdaa hadday macsi tahay shaytaan baa qurxinaya, inta xalaashaana ilahay baa u qurxiyey. zuyina linnaasi xubu shahawaat min النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. nafta dadka waxa loo qurxiyey baa ilaahay leeyahy subxaana watacaala, waxyaabaha shahawaadka abaa loo qurxiyey ou ka mid yahay haweenku. masalada haweenka iyada qisatu yuusuf baynu kaga hadlay, iyo caruurtu, iyo baa ilaahay leeyahy subxaana watacaala والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. qinطaarku waa wax lagu miisaami jiray ama wax lagu qiimeyn jiray, lagu qiyaasi jiray. laakiin waxaa la tilmaamaya halka kan oo looga jeeda alamwaal almukadasa, xoolaha laysdul tuule la ururinayo ee min adahabi walfida. lama odhanin dahabka iyo fidadaa laydiin qurxiyey, lama odhanin. laakiin waxaa la yidhi buurbuurnidooda iyo inaan in kugu filan aanad ka qaadan aada wado una tuusho xagga dambe aad ku gurto un, taas baa laydin qurxiyey. insaanka lama qurxoona intuu cuni lahaa, cabbi lahaa, ku hoyan lahaa hadduu helo isma odhanayo iska fadhiiso waad haysataa waxaagay. wuxuu jecel yahay inuu ururiyo oo ay badato, la dhaa waa bilyaneer, bilyaneerka bilyaneer kale kasii noqdo. oo haddii dhulka oo dhan aada hesho aada isweydiisato low dayaxayaa leh aanu kugu filaanin. walidalik bu nabigu wuxuu lahaa afka bini aadamka ma buuxiyo maxay ciidda mooyaane. insaanku hadduu laba waadi oo dahaba leeyahay baa la yidhi labtagaa thalitha, mid saddexaad buu daydayi lahaa. waa nahim, waa hunguri badne, waa hunguri doonaya maalka uma rabo inuu ku intifaacsado. maalku wuxuu ahaa intaad ku intifaacsanayso sax inaad raadiso, ummadaada adiga dadka kugu xidhan waxaad ku intifaacsanaysa inaad raadiso. laakiin shahwatu nafsigu iyadu waxay sheegaysaa inaad biiriso una ururiso. walidalik baa ilahay wuxuu leeyahy walqanaatiir almuqantarati min aldahabi walfida. dahab iyo fida qura maaha waxaa naftu jeceshahaye, waa alqanaatiir almuqantara.
maalka mukadaska la ururiyay la tuulay ee la tira badiyay inuu noqdo. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. يبقى ليلي الخيل المسومة أي المعلمة أو الصائمة فرضها لفوفيه مجرد فوف كودي انت الغرة حيستو أو المعلمة لترينجرية وحلبري أو يعني كلمة إلى صدح معنى مفسرته الشجر أيا كانت وحلت الماما يعينو يهي دad kan la jeclaysiiyey xataa xaajadii rasmiga ahayd haddii aanu u wadanin faraska qurux iyo ziina inuu haysto iyo in la daawado iyo in la baratansiiyo iyo in la sii eriyo iyo in la soo eriyo inay ka mid tahay waxyaabaha naftu jeceshay. maanta bal Yurubeega waxa faras jooga iyo waxa cid ka shaqeysa iyo waxa gaari lagu sida iyo waxa dad u maydha iyo waxa ka shaqeeya waxa soo farasa inta ugu badan waa uun dagaal la cid kuma gashay cidina mar harata cidina ma fuusho waa ziino iyo haddii laga tegi waayo qamaarkii lagu khamaarayay oo isna shay kale muharram loo sii adeegsanaya. ilaahay wuxuu tilmaamayaa waa la jeclaysiiyay waxa soo dhan iyo wal harth iyo wal an'am iyo waxa soo dhan beeraha xoolaha waxa soo dhan baa leeyahay. laakiin ilaahay wuxuu ku gabagabeeyay waxa soo dhan marka la isku daro waa mataaci alxayaati dunya waa nolosha adduunyo in yaro lagu bidbirsado. laakiin ilaahay aftiisa waxa ayaa ka khayr badan intan oo dhami waa wax yar marka loo eego Allah subhanahu wa ta'ala aftiisa waxa idan nafta bini aadamkii wax badan bay jeceshahay wax badan baa loo qurxiyay waxa la leeyahay waxa shahwaadkii waa ashyaa muzayyana la qurxiyay waxa quruxda u dheeriyay intaasi inuu shaytaanna dabada ka wado oo isaguna lug iyo faras baynu fuushan yahay oo aanu xarakad iyo dhaqdhaqaaq daynaynin oo uu rabo inuu xagga kugu riixo. haddii aad nafta u dhagan nugulaato shaytaanna uu maceed noqdo markaasi uu sii wado shayaatiinul insigii kalena iyana ay dhanka kale kaaga jiraan khatar way baad ku sugantahay. markaa waxaynu u baahanay markaa wuxuu yahay inaynu nafta ilaalin karno oo nolosha waxay uga baahantuun inay ka qaadato inaynu ku tarbiyayno. cunada maxaa wax loo cunaa waxaa wax loo cunaa inaad jidhkaaga ilaashato saacinka ma caafimaadkaaga inaad ilaashato xoogaysato. basharku maanta wuxuu marayaa inuu cuno ilaa iyada ku xanuunsado yani qasdigii intay dhaafto oo ay ku badato mid macaan iyo mid qadhaadh iyo mid walba intuu liqo oo wado hadhow inuu baado haddana wuxuu isku yareeyo oo haddana dib usii wado. asalku wuxuu ahaa waxayna kaga filaa shahwadaasi oo dhan inaynu ka fekerno war cunada maxaad uga baahan tahay waxaad uga baahan tahay inaad ku caafimaad qabto jirkaaga ku dhisnaado oo aad ku cibaadaysato. idan in lagu koobo waxaad cunaysa inta tan inaad isweydiiso haween maxaad uga baahan tahay inaad intan ku koobnaato inaad isweydiiso nolosha oo dhan naftu waxay doonto inaanay kugu wadin shaqo maxaad uga baahan tahay inta aad ku noolaanaysa nafta iyo carruurta iyo reerka inta ku wadato inaad ka hesho waxaas inaanay markaa ku dhaafinin asalkaaga iyo wixii lagu abuuray iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala cibaadadiisa iyo nafta tani meesha ku raaxaysan lahayd inaad rumaysato inaanay halkan ahayn. naf bini aadam oo halkan raaxo ku qabtaa ma jirto. dadka kuwa ugu hanti badan baa ugu maxay ayaa ugu dhib badan. ninka maanta ugu bilyaneersan ee TV-yadu waxay soo daayeen iyadoo ilmadu halka ay ka dacayso sawir saaxib Microsoft dakhligiisa lagu ma xisaabiyo saacadiya waxa waa minute mise second income waxa sheega ay ugu wardambeysay dhowr iyo sagaashanadii isagoo $500 maraya beer minute mise beer second income kiisu daqiiqad kasta lacagta soo gashay. maxkamadda waxoogaa yar ku xukunta waxa la yidhi shirkadda la kala yara jebinaya TV-gu soo fadhiistay isagoo oohin afka kala hayo labada ay ka dacayso hadda isaga iyo 20 qarniyo dambe wuxuu dhali doono bale beeshu la noolyeeba waxay dhasho waxa laga yaabo waxay cuni lahaayeen inuu haysto more than 90 billion buu markaa haysto. haddana in yaroo la kala jabiyo oohin ay halka kala dareeraysa naftani ma dheregto. marka dad bilyaneerka ugu dambeeya noqoto waa daaliyo waxaad ka sii qaadaa waa daal. inta ugu hantida badan leh ayaa ugu hurdaya oo ugu warwar badan oo maalin walba wadnaha qaybigooda marka la yiraahdo marka baad degay ama waxba halkan ka yara khasaarayba barasharka ku kaco dhaqaatiirta la geeya.
adigu waxa laga yaabaa inaad leedahay maalkaa qaaruur oo kale maan yeesho sidii kuwii qur-aanku sheegayay ee lahaa ninka kan waa loo nimceeyey waa kan maalkaasi dad buu dhib ku hayaa maalintu in yar khasaaro maalinta in yar boorsadu isbedesho tv-ga adigu warka intaad ka dhegaysato boorsaduna halkaa dhex carabtee la yidhaahdo waxbaa hoos u dhacay waxbaa kor u kacay wax badan adigu ma dareentid laakin dad baa marka la yidhahdo dhowr boyt bay hoos u dhimatayba wadnaa badhgo ah yani naftii shahwaatu nafsigii baa la raaco la iska tiro badiyey waxay ahayd inaad garato war nolosha maxaa lagu falaya maxaad uga baahan tahay nolosha tan waxaad uga baahan tahay markaad xadido nafta inaad u talisid markaa idan ma lihin shahwaatu nafsiga kabti ha lagu sameeya ama hal la gooyo ma lihin waayo islaamku raahibnimo ma qabo iyo nolosha in laga guuro laakiin wuxuu qabaa in la tandiimiyo oo zuhdi iyo waracnimo iyo diin lala yimaado oo la garto nolosha tan iyo inay gabagaboobayso oo la garto naftu inaanay kuu talinin inaad adigu u taliso oo aad garato baahidaadu waxay tahay noloshana waxa baahidaadu to inaad ka qaadato inaad saacadahaaga iyo noloshaadao dhan u bixinin guriga kuraasidiisa inaad bedesho marka mushaharku kuu kordhaba gaadhigu baad bedelaysa marka lacag badan soo xaraysa haddana guriga daahiyada ku xidhan iyo kuraasdun baa la bedelaya ma waxaad u noosha inaad kursi iyo daah ka shaqayso adigu isma lihid laakiin xaqiiqadu waa taa waayo awariskan tirada badan la aad shaqaysiya intani waxay soo kordhiyeenun in reerka kuraastii hore laga daadiyo daahiyada hore in laga guro iyo wax lamida un bay soo kordhiyeen noloshaadu waxay ahayd inay ka qiimo badnaato daah bedelkii iyo kursi raridii iyo kolba sariir ku bedel inay ka qiimo badnaato walidalik ayaa dadkii naftooda xakameeyey nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi iska seexday oo soo toosay oo ay ku taallo xasiirkii salligii yaraa u ku sooxday xariijimihiisii ayay waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisi aan furash yar kuu soo samayno oo aad ku seexato oo anigii adduun maxaana kala galay buu ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh miyaan anigu ahayba sidii nin geed hadhsaday oo dabeetana dee ka tegayo nin raakibo oo raaxiladiisii intuu geeduun hoos hadhsaday ka dhaqaaqay mooyaane miyaan anigu wax kala ahay buu nebigu ku tilmaamayay idan waxay leenahay naftu waxay u baahan tahay in la xakameeyo waxay u baahan tahay in caqliga la isticmaalo waxay u baahan tahay wax kastoo aad qabanayso inaad su-aal iska weydiiso maxaan uga baahnay inaanay naftu ku wadin amase bulshada hareerahaaga taagani inaanay kuu noqonin midaad ku dayato un oo markaa bulshada hareertaada joogta ama inaan tv-gu ku hagin iyo iclaanaadka ka soo baxa oo markaa tv-ga wax cusub ku aragtaba ama iclaan cusub soo baxaba aanay naftu ku odhan adigana kaa waan u baahnay waxaan dariska kusoo koobaya qisatu aadam waxaanu soo qaadano 2 masalo ah inaynu garanno meelaha aynu u jilicsannahay awowgeena aadam ahaa halkii ibliis uu ka galay innagana ina dayn maayo wuu inaga gelaya aadamna waxaa qisadaa loo soo mariyey in tadriib rasmiya la siiyo inu wax ku qaadano waayo isaga bashar hore oo ka horreeye u arkayay ma jirin isagii baa bilaabay isagana ilaahay subxaana watacaala trainingkaas buu siiyey waxaynu markaasi u baahannahay waxaynu la noolnay ummad maadiya waxaynu la noolnahay ummad inaga qiyam gedisan waxaynu la noolnahay meel shahwaadku ay xagga sare marayaan cirka ay marayaan ama miqyaaska wax lagu qiimeeyaba uu yahay shahwatu nafsiga waxaynu leenahay meel runtii khatarteedu ay aada u badan tahay sidaa awgeed waxaynu u baahannahay inaynu baranno nafta sidii aynu u hogaamin lahayn sidii aynu nafta khayrka u bari lahayn ugu train garayn lahayn sidii aynu nafta waxii shahwaati ay leedahay ugu tilmaami lahayn ama se ugu sheegi lahayn inta ka khusayso oo qura in ay ka isticmaasho haddaad taa ku guulaysato yani wax badan oo diintaadii kamid ayaad ku guulaysatay haddaad asiladaa si fiican uga jawaabi kartid wax badan oo diintaada kamid ayaad ku guulaysatay khayru lkalaami maa qalla wadal hadal ku kooban oo waxa la rabana tilmaama ayaa ugu fiican buu nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaan kusoo koobaya warkaygu wuxuu yahay masalada tan ku saabsanen maanta oo ujeeday inaynu garanno naftu meelaha ay u jacaban tahay
ee laga wadi karaa inay kuwaas yihiin qur-aanku uu sheegay iyo wixii la halmaala iyagana inay wax allaaliya dhibta tirada badan le shahwaatu nafsiga ku xidhan oo dhami inay ka ratibanto haddaad meelaha gufayn karto si fiican aada u gufayso in nolosha inta kaleo dhanna la xukumo baahidaasi ay ragga iyo dumarku isu baahan yihiin waa baahi kamida baahiyaha basharka laakiin waa baahiyaha le dawaafic tiro badan oo qofka hore u riixda se u baahan in badan dawaabit ama waxyaabo ilaaliyo oo controola oo qofku uu ku badbaadi karo nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi axaadiista ka sugan waa ka ku tilmaamayay waxyaabaha ugu daran waliba ummadiisa yani fitanka ugu daran ma taraktu fitnatan ashad cala ummati min fitnati nisa waina fitnatu bani israa'iila kanat fi nisa ayuu nabigu tilmaamayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu haweenku yahay fitanka ugu daran ee qofka soo waajaha waliba qisada haddaynu in yar u fiirsano oo runtii inagaga filan mas'alada tan iyo suuradeeda dhammaanteed qisatu yuusuf oo ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisii iyo nebigiisii ah yuusuf suuradda qur-aanka ilaahay kaga warramaya mixan tiro badan baa loo soo bandhigay ilahay wuu imtixaamay imtixaanaadkaasi uu ku guulaystay waa la imtixaamo waxaa lagu imtixaamay kalgacalkii aabihii oo ay ka qaadeen walaaladii xaasidnimo oo ay dabeeto god ku rideen god cidlo ku yaala baadiye madow oo aan cidina kuugu imanaynin waa la imtixaamo waxaa lagu imtixaamay in inta god laga saaro ikraam ilmatwa uu gaadho haddana oo qoys boqortooyo uu la noolaan karo waa la imtixaamay haddana waxaa lagu imtixaamay jamaalkiisi iyo quruxdii alla siiyey subxaana watacaala oo guriga boqoradaba habartii joogtay looga taag waayey waa la imtixaamay nabiyullaahi yuusuf oo waxyaabaha alle subxaana watacaala ku imtixaamay waxaa kamid ahaa in haddana uu xabsi galo waa la imtixaamo waxaa lagu imtixaamay waxaa kamid ahaa intuu xabsi ka soo baxo haddana inuu dadkaba quudkooda iyo xoolkooda iyo maalkooda iyo maamulkoodaba haddana gacanta loo geliya min alxabs ila almulk inuu haddana ku noqdo waa la imtixaamo waxaa lagu imtixaamay mashaacirta bashariga walaaladiisii godka ku guray iyagoo baahan haddana inay u yimaadaan oo iyagu wax dalbaya kullu dalik waa imtixaanaad kala gedisan oo ilaahay subxaana watacaala nabiyullaahi yuusuf mariyay imtixaanka si aynu inagu isku dayno bal waxoogaa inaynu is ag taagno waa imtixaankan ku saabsan haweenka cumuuman ilaahay subxaana watacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamaya waraawadathu alatii huwa fii baytiha can nafsih wagallaqat alabwaab waqalat hayta lak qala macaada allahi inahu rabbi axsana matwaay inahu la yuflixu alظaalimuun ilahay wuxuu tilmaamaya subxaana watacaala nabiyullaahi yuusuf in la imtixaamay oo haweeney lagu imtixaamay ugu horeyna ilahay wuxuu leeya waraawadathu alatii huwa fii baytiha waxaa hunguraysay waxaa u yeedhay almuraawada yani waa si luqfi ku jiro qabow marka la isugu yeedho waxaa hungurayso u yeedhatay baa ilahay leeya subxaana watacaala kuu gurigiisa joogay awalan yeedha ay gabadhi iyadu ku dhawaaqdo in uu xaggeeda ka yimaado inay ninka u baahan tahay waxaad moodaa martabad dambe inay tahay kaanamaa ilaahay subxaana watacaala aanu inooga waramin iqra'aadkii hore ee tirada badnaa ee meesha yaalay aakhiru lamri laynoo tilmaamay oo ah waraawadathu alatii huwa fii baytiha inay iyadu dalabtay waxaa kaloo laynoo tilmaamaya nabiyullaahi yuusuf inuu iyada gurigeeda joogay oo cidda dee sayidkaaga ee ku maamusha awaamirtiisa iyo dalabkiisa waad uga jilicsan tahay qofka dabadda aad ka joogtay caadiga ah markaasaa la yidhi waraawadathu alatii huwa fii baytiha baa ilahay ku tilmaamay subxaana watacaala waxaa kaloo la tilmaamaya yani musiiraadka ama wasaa'il uljad dhammaanteed inay meesha yaaleen waxaa la leeyahy wagallaqat alabwaab waa xidhxidhay albaabada dhammaantood waa soo qafishay baa la leeyahy subxaana watacaala waa shay labaad oo qofka hunguri gelin kara haddii cidla uu albaab weliba kuu xidhan yahay oo dalabku iyada ka yimi gabadha oo gabadha ay sayidadee ama gurigii
dee ciddii lahayd ay tahay oo isagu uu raqiiq yahay oo qofka raqiiqa ahi ama qofka la adoonsanaya waa ka jilicsan yahay oo waxan waa uga jilicsan yahay yani qofka isagu xorriyadiisa iska haysta weliba wasaa'ilu tashjiic oo dhan bay isticmaasho muraawado qura qadiyadda kumay daynine ilahay wuxuu ku tilmaamaya subxaanahu watacaala waqaalat hayta lak waxay tilmaamaysaaba soo dhawow kaalay bay sii sheegaysaa yani waa waqaxaankii ugu dambaysay islaamku joogtaa marka kan ilahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa inay isku dayayso inay soo dhawayso waxaa intan raaca inuu nabiyullaahi yuusuf dhalinyaro yahay waayo aayaadka qur-aan hore waxay tilmaamayaan markii uu riqiyo addoonnimada ku dhacay istibcaadka markuu dhacayo inuu ghulaam ahaa aayaadka dambe gabadhu markay dumarku ceebaynayaan gabadha tanna fata bay ku tilmaamayaan alfata fi lugha cabdiga waa lagu isticmaalaa waxaa kaloo la yidhaha qofku fi lugha ghulaam dabeetana fatwa shabaab dabeetana rujula buu gaadha idan waa nin isna markaasi dhalinyaro ah oo dhalinyaronimo isu geystay buu u muuqdaa iyana waa wakti kale oo qofka bini aadamkii la odhan karo waa waktiyada ay shahwatu nafsigu haweenka u haya ay aada ugu daran tahay waxaa kaloo meesha ka muuqata gabadha tani dee u yeedhaysa waa ciliyat lqawmna maaha gabadh suuqa iska joogto caadiya waaba dee imra'at lcaziiz waa gabadhii boqorku uu qabay idan waa ciliyat lqawm bay ka tirsantay waxaa intaas raacsiisan oo kale inay haddana gacantana xataa ku dartay oo ilahi waa ku tilmaamaya wastabaqa albaab yani inay gacanka hadal gaadhay oo arrinku aanu ahayn muraawado qura iyo wada hadal laleeyahay soo dhawow keliya ee inay xataa isku dayday gacanta inay isticmaasho waxaa intaa dheer ninku waddan aan waddankiisii ahayn markuu joogo had iyo goor ceebta kama xishoodo dadkaaga iyo qaraabadooda iyo tolkaaga iyo meelahaaga markaad joogto ceebta waxa laga yaabaa inaad aada uga yuusuf dhulu gariib ku yahay oo addoonnimo loo gatay oo aan cidina ka garanaynin ayuu jooga waxaa intaasi u wada dheer baynu odhan karnaa marka oo ay gabadhan isticmaasho wax allaaliya wixii qof bini aadama lagu hunguri gelin kari lahaa ilaahi subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya inuu nebi yuusuf isagoo halkaa jooga uu diiday qaala macaada allah acuudu billah ilaahay baan magan galay buu leeyahy nabiyullahi yuusuf naftiisuu xejin karay iyadoo waktigani uu yahay wakti qofka isxejiya qof caadiya aanu ahayn waayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh axaadiistiisa waxaa ku sugan waktiyada ay xadku halkaa gaadho hadduu qofku isxejin karo inuu yahay dadka abaalmarinta weyn leh qadiyadu ma aha qofku zinu ka tego keliya waxa weeyaan waa mawqif xaraja buu galay mawqif mashaacirta iyo cawaatiftu ay ka xoog badato inta badan caqliga sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiiskii saxiixa wuxuu ku tilmaamayay 7 carshu raxmaan hadhsanaya ama hooska helayay maalinta qiyaamaha ee aan dadku hadhka haysanin 7daasi waxaa ka mid ahay oo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tilmaamayay warajulun dacathu imra'atun ذات حسن وجمال وفي الرواية ذات منصب وجمال نبي صلوات الله وسلامه عليه وحيري واحد تضوضع في كمده نما يؤيردي قبط قرح دمان تيسكله إيوه منصب علية القوم كا ومكا وطبقات السرع اللي هم قرية كتر سنة ويقفكم موقف كهالكاسيين تقاريروا نفتح حجية وميلارك وماشا سيد حلسين سمالة قيامة dadku cadceedu wada hoos taagan yihiin qof waliba uu dhididayo intii dembigiisu leekaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu hooskaasi siinayo waa mawqif adag inuu yahay waxaa kuu tilmaamaya xadiisu 3 saddexdii nin ee nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu sheegay inay god meel intay jirsadeen god galeen dabeetana dhagax kusoo dulcooday afka uu godka ka xidhay 3 nin midba camalkii khayrka lahaa oo ilaahay dartii u sameeyay ayuu alla ku bariyay subxaanahu watacaala mid bir alwaalidayn buu ku bariyay midna shaqaalihiisa uu samafalay buu alla ku bariyay mid labadiisa waalid iyo sidii ugu samafalay xadiisku waa macruuf agtiin ayuu ilaahay ku bariyay subxaanahu watacaala in ilaahay godkan dhagaxa ka fujiyo marka kan in baa fuqday kii labaad wuxuu alla ku bariyay subxaanahu watacaala
saddexda nin mid ka midi wuxuu ilaahay ku bariyay isaguna inuu nin shaqaalaha shaqadiisii markuu sirisi uu kaga tegay dabeetana xoolihii uu sii hayay uu koriyay mar dambe uu helay uu wafeeyay iyagoo soodiya ka saddexaad wuxuu ilaahay ku bariyay oo uu sheegtay inay gabadha ilmaadeeriyin jirtay oo uu jeclaa oo uu raadceeyey oo hunguri badani ka galay oo diiday oo ka adkaysatay oo beri dambe isagoo weli kalgacalkii qalbigiisa sidii ugu jiro ay soo martay iyada oo baahiyeysan oo dabeetana wax weydiisatay oo uu ku yidhi waxbaan ku siinayaa isukay dhiib oo ay markii hore ka aqbashay oo uu u dhiibay 120 diinaar 120 diinaar waa imisa 4.25 haddaad ku dhufato waa 510 gram yani waa nus kiilo dahaba oo nus kiilo dahaba siiyey oo bacda dalik markay isu dhiibtay ay ilaahay xasuusisay subxaanahu watacaala oo ay tidhi bikaarada tan ha ku goynin xaqeeda mooyaane ina dariiqii ilaahay uu baneeyey soo marta mooyaane oo markuu bayna shucabiha alarbac uu joogay weedha tan la yidhi ay ilaahay xasuusisay subxaana watacaala waa mawaaqif xaazima mawaaqifta tan qofku hadduu isqabto waxaa laga yaaba adigu yani qofku markuu caadiska yahay inuu tirahdo muxuu sameeyey diinun buu ka tegay soo maaha zina maaha inaad go-aanka waktiyada qaarkood qaadataa wax fudud maaha yani zinadu marka lagu yidhaahda albaabkeeda xidh ee hore inaan furin bay roonta albaabkeedu markuu xidhan yahay inuu sidaa kaaga xidhnaadaabaa roon shareecaduna shahwaatu nafsigan waxaa la ogyahay go-aamadan cidda qaadan kartaa inay cid yar tahay walidalik baa nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sidan u dhiiri gelinaya uu tilmaamaya dadkii mawaaqiftan qaatay ee halkan istaagay iyagoo u banbaxay fitnada intaanad u banbixin inaad nabad gasho waa suurtagal yani qofka bini aadamka ahay markaad keligaa tahay waad isla xoog badan tahay waad isla sabir badan tahay waxaad is leedahay malaha ma nin unbaa intuu jihaad gala matalan soo cararaya laakiin markay xabaddu dhan walba ka yeedhay agtaada ku dhacday kii kaa horreeyay dhintay kii kaa dambeeyay dhintay mid la eryaday ciidanku jabay nafta markaa sabirtee meesha ku adkaysata ee tawalla yawma zaxfi samayn weyda waa ka ilaahay u tilmaamaya inay khayr badan leedahay idan mawaaqiftu insaanku markuu qaadanaya markay nadariyaadka tahay wax waliba way fudud yihin qof muslimo la yidhi zina iska daa inuu zina iska daaya oo wax fudud bay kula muuqataa laakiin marka xawaabista waxa ku kalifaya inaad zinaysato dhabe markay hareerahaaga joogaan ee qofku uu gaadho wadciga kan inuu halkaasi inuu waxaan rumeeyo iyo inaanu rumaynin inay u gaadho oo uu markaasi mawqifka kan qaato waa nin rag ka tegay ninka go-aankan qaata waa nin rag ka tegay ninka go-aanka kan qaata walidalik buu nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh axaadiistaasi ugu tilmaamaya toddobada qiyaamaha yani ninkan iyuu la socdaa laleeyahay dacatu imra'atun dhatu mansab raggu la socda waxaa kamid ah imaamun caadil umma kamila nin imaamu ahaa oo cadaalad u sameeyey oo mujtamac dhan xukumay oo halkaa iyabaa la isku daray ninka naftiisa oo qura xakameeyey markii laakiin arrinku uu halkan gaadhay markay gaadhay gabadhu inay xishoodkao dhan jabiso inta badan waxaa la arkaa gabadhu inay ka xishood badan tahay ninka inta badan waxaa macruufa inuu ninku yahay ka hunguriga badan le wax wada inta badan waxaa macruufa gabadhu inay tahay ta la doono ee iyadu markaa isnabta xishoodkeedu laakiin intay gabadhu xayada dhigtay inay iyadu muqadamaadka samayso oo iyadu bilowdaba warka oo iyadu codsiga keento marka uu ninku leesadkeeya waa xaalo khatara walidalik buu nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu ku tilmaamaya warajulun dacathu imra'atun dhatu mansabin wajamaal nimay u yeedhay gabadh quruxna leh mansabna leh wixii basharka lagu hungurayn jiray inha way wadataa waayo waxaa laga yaaba hadday aada u fool xun tahay inuu ka fogaan lahaba foolxumadu inay yaqiiqsi keeni lahayd oo iskaga tago laakiin waxaa la yidhi marka hore jamaali lmandar bay wadataa oo iyadaaba quruxdan isagay soo jiidanaysay dhat mansabna weeyaan oo hadduu gabadha yaro xaqirayo dad hoose u arkayay waxaasi wax laga yaabo inuu sidaa sharafta yaro ilaashiyo waa kan laakiin waxaaba la arkay inay iyadu iska bidaysay marka kan haddii gabadhii halkaa joogta oo iyadu xishmada ka tagtay uu ninku mawqifka kan qaato waa mawaaqifta ilaahay loogu dhawaado subxaana watacaala sida daraaddeed baa basharku maadaama nuqdatu dacaf ay tahay ilaahay ambiyada wuxuu inoogu soo diro layna yidhi fabihudaahu muqtadi
inta ilaahay ka sheekeeyay ambiyo ayaa waxa la yidhi iyaga hanuunkooda ku dayda. ambiyadu waa misaalkii xayiga ahaa ee dadka ahlul iimaanka u ahaa tusaalaha dhabta ah fi ayi baab. haddaad bukaan iyo xanuun iyo qof dhibi ayuub baa halka jooga. haddaad boqortooyo iyo maamul iyo xukum iyo hanti ballaadhni daawud iyo sulaymaan baa taagan. haddaad dawlad dictator iyo niman waxba wadan oo keligii ka hor yimi oo xaqa ku dhawaaqaya nabiyullaahi muuse halka jooga fircoon ka hor yimi. nabiyullaahi ibraahim oo namruud ka hor yimi baa jooga. haddaad jihaad iyo dagaal iyo nabiyullaahi maxamed ama ambiyada yani qur-aanku waa amthila xaya mawaaqiftu basharku istaagi lahaay oo dhan tusaale aan la siiyey. wiil kasta iyo gabadh kastoo shahwatu nafsi qaada maryama allatii axsanat farjaha iyo yuusuf baa aakhira ku markhaati kacaya in la samayn karo ay tahay wax bini aadamku uu samayn karo inuu qofku cifa yeesho oo uu dhowrsanaado. ilaahi subxaana watacaala nebi yuusuf marka wuxuu inoogu tilmaamaya tuu gurigeedaba joogay inay iyadu dalabtay way naftiisa ka dalabtay way albaabada soo xidhay way weliba u yeedhay laakiin waxaa xasuustay alle subxaana watacaala. macaada allah ilahay baan magan gelayaa buu leeyay magan geliyo. inahu rabbii axsana matwaaya ilaahay subxaana watacaala waa aniga rabbigay isagaana godkayga soo saaray. idan haddii markaan dhibtu ay haysatay ilaahay ii naxariistay wuxuu mudan yahay inaan u mahad celiyo ana marka aan nimcaysnahay ee wanaaga ku jiro inaan ilaahay xasuusto subxaana watacaala. haddaad rabbiga alle ka dhigto subxaana watacaala mufasiriinta bar siday ka dhigaan haddaad ninkan madaxdaa ka dhigtana waa man lam yashkur innaasa lam yashkur illah. ninkan madaxdeedee yidhi akrimi matwa markii hore baa soo yidhi meeshuu seexanaya iyo dhulku degaya iyo meeshiisa fiicnaysi yani waa balaaqa xeel dheer ba ku jirta. isaga fiicnaysi lama odhan degaankiisa hagaaji baa la yidhi. inuu marka ka yidhaahdo inahu rabbi axsana matwaaya iyana waa macquul kale oo ninkii quudiyey ee hagaajiyey ee caynka. waayo zinadaada xaliilatu jaarik iyo dadka kuugu dhawaad ka zinaysata waa ka nebigu ku tilmaamay inay ka fool xun tahay ta kale oo dhan. lidalik buu ilaahay subxaana watacaala magan galay. waxaa kaloo ilaahay sawiraya cawaatiftii bashariga ahayd haddana inay meesha taalay. walaqad hamat bihi wahama biha lawlaa an ra'aa burhana rabbi kadalika linasrifa canhu suu'a walfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin. mufasiriintu aqwaal tiro badan bay sheegaan laakiin isku soo ururi gabadha tani hamu ficlin wa qasdin bay waday isaguna hami khaatira ah oo dhaafay un weeyaan. burhaankuna waa un shaygaa ilaahay xasuusiyey subxaana watacaala ayankaan shaygaa keenay inuu ilaahay xasuusto oo uu dib ugu noqdo alle subxaana watacaala. ilaahay baa wuxuu tilmaamaya waxaa sidaana loo yeelaya in xumaha laga weeciyo waayo wuxuu ka mid yahay addoomaha mukhlasiinta ah. ibliisna waa kii hore uu yidhi aynu soo marray isagoo le addoomaha o dhan waa duufsanaya ilaa cibaadaka almukhlasiin mooyaane inta alla uu doortay ee xumaha laga dahiray intaa mooyaane. qisada tan ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya inay arrintu dhaaftay war la isweydaarsado oo ay tagtay in la isqasbo. ka waran nin imra'a daatu mansab wa jamaal intay wax warsatay diiday oo soo gaadhay marka kan inay gacanta ku isticmaasho qasabto dabeetana iska celcelinayo oo orod miciin biday oo cararay oo albaabka gaadhay oo albaabkii ay kula kulmeen sayidkii oo alfaya sayida haalada albaaba. islaanta waa islaam weyn oo caqli badan oo waa kan siday u muuqato jawaabaheedu waa usii diyaar. markay la kulantayba jawaabbay dhiibtay ay tilmaamayso waa maxay ma jazaau man araada biahlika su'an ila an yusjar aw cadaabun aliim. ninka reerkaaga xumaha la doona maxaa abaalmarinkiisu yahay in la xidha ama la ciqaabo mooyaane. laakiin nabiyullaahi yuusuf afkala qaad ba isaga tanina ku too hiya raawadatnii can nafsi difaaciisu noqday iyada ay doontay wax kale oo jawaaba u bixiyey ma jirto. ilaahi subxaana watacaala wuxuu qur-aanka u sheegaya in ilaahay markhaati uu bixiyey nebi yuusuf oo dabeetana markhaatiguu markhaati furay oo qaraa-in uu adeegsaday macquula. qariinadaasoo sheegaysa haddii maradiisu ay xaggan hore ka dilaacsan tahayna dee way iska haysaysay oo isagaa wax qasbayay. hadday maradu dhabarka ka dilaacsan tahayna
in ayadu soo qabqabsanaysa isaguna uu sii cararayay. waxa kaloo meesha ka muuqata dadka ciliyatul qowmka ee asxaabka jaahiliyiinta ee aan diintu qalbigooda xooga u deginin, hiiradu siday u dhimato, dabeetana in warka la dambabase uun oo aan wax weyn laga dhigin, oo uu yidhaahdo yuusuf markay qadiyadu caddaatay acrid can hada, iskaga jeesoon adigo warkaa waxba ashaacine meeshaad iska joogin la yidhaahdo, oo gabadhana laga dhiga un wax iska fududun ahaayo la yidhahdo astaqfirii lidambik inaki kunti min alkhaati'iin loo tilmaamo, oo xataa aanay qisada ka muuqanin hiira inay jirtay ninkani cala alaqal wiilka iyo gabadha inuu kala kaxeeya. waxaa ka muuqato sida qisada qur-aan ku jirta inay weli gurigiina uu iska joogay, meel kale aanu geynin, haweeneydatan aan waxba la odhanin. waa mujtamacu markuu faasid noqdo, ciliyatul qowmku dadka kale un sumcadda laga ilaashado la ismaqashiyo mooyaane xumuhu xuma uma muuqdo. waana jaahiliyaadkii hore waxay isticmaali jireen ilaa jaahiliyaadka hadda jooga. somaydan maqle madaxweyneyaal dhan oo fadaaix dumar iyo ceebo iyo beliyo baas oo odagii islaamta iska joogaan oo laleeya iska joogdhi jirtay. wakadalik ay jaahiliya diinka fogaadka uu ku dhaco waa sida tan un dhaqankooda. warkeedii markuu faafayna derbiga uu dhaafay ee magaalada uu gaadhay ee la yidhi imra'atu lcaziizi turaawidu fataha qad shagafaha xuba, turaawidu fataha can nafsi qad shagafaha xuba ina lanaraha fi dalaalin mubiin. la yidhi imra'atu lcaziiz wiilkeedii yaraabay raadacaysa, waxaa la yidhi shigafulqalbi baabu ka galay, yani waa xuubka yara wadnaha ku daboolan, xuubkuu jeexay xataa yo yani qalbigeeda ayuu degay kalgacal iyo cishta waxay u qabtay. waxaanu arkaynaa bay dhahdeen inay mid baadi ku sugan tahay. markay ogaatay dacaayadii iyo warkii laga sheegay maxay isku difaaceen. intay dumarka u yeedhay may doodin oo may odhan anigu waxaan ma qabo, ama sida tani ma jirto, ama caynkani ma jirto. waxay samaysay uun biia jirtay oo kale ah, maadaama iyanay mufsidiin kale ku og tahay, bii'adii oo kale hadday hagaajiso u sallaxdo waxay og tahay inay nafsu shay iyana qaadanayaan. waayo zinada may ceebeynayna turaawidu fataha un bay yidhaahdeen, kaanamaa inay ciliyatul qowm ahayd oo inan yaroo addoon aanay hunguran iyo caynkan oo kale ayay u muuqataa. walidalik baa ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamaya intay casuumadu samaysay oo raashin u dhiibtay oo midiya siisay inay yuusufna tidhi soo bax, oo dabeetana jamaalkii yuusuf markay ka argagaxeen ay gacmaha iskoogooyeen. iyana waxay ku dooday markaa fadalikuna aladii lumtunanii bih, waxay igu canaananayseen waa kaa. dabeetana war cad baabay furtoo ah waxa aan ugu yeedhayana hadduu yeeli waayo anaa naftiisa ka doonay bay tihi, waanu iga adkaystay, hadduu aqbali waayo waxaan ugu yeedhayana waa xabsigaa loo dirayaa bay leeyihi, oo kuwa la duleeyey ayuu ka mid noqonaya. yuusuf weli fitnadii buu dhex yaallaa. waxay taagantahay haatan in kooxaha weyn isu wada raaceen. waxay taagantahay markii hore waxay ahayd muraawada, markii hore waxay ahayd talab, markii hore waxay ahayd tashjiic hayta lak, markii hore waxay ahayd jawigoo la fiicnaysiinayo ku dhawo qallaqat ilabwaab, markii hore waxay ahayd inay waxoogaa gacanta ku daydo oo uu soo riixido wastabaqa albaab. laakiin hadda arrinku halkaa wuu dhaafay, waa tahdiid kaba dambaysa, waa ama waad samaynaysaa waxa lagaa rabo ama xabsigaad gelaysa, ama waad samaynaysaa waxa lagaa doonayo ama xabsiaad gelaysaa bay hadda joogtaa. qofka mu'minka ah ee ilaahay ku xidhan subxaana watacaala waxaa jira silaax hub khatara oo gacanta qofka muslimkaa ku jira inuu isagu isticmaali garan waayo mooyaane. waa hub laxdad kasta oo naftu isugu kaa timaada haddaad adeegsato la hubo inaad ku guulaysanayso. waa hub ilaahay qur-aanka in badan inoogu tilmaamayo, ambiyada tilmaamayo. ambiyada waa ka ilahay nebi walba intuu kasoo warramo dhibta haysatay isagoo ilaahay bari fastajabnaa lahu ilahay ku wada tilmaamayo. waa hub runtii dadka mu'miniinta ahi waxgoyntiisa in badan oo kamid ay ilowday oo aanay xasuusnaynba. asbaabo kale iyo meelo kale bay u jeestaan marka dhibtu ku timaadaba. nabiyullaahi yuusuf wuxuu bilaabay inuu hubkiisa adeegsado.
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إلهي ببري قال ربي ببرعبي قفك مسلم كاهنا هدو إلهي سنة بقعماه وقتاقه إلهي مهوشيه لو سنة بإلهي قعماه وقتاقه إلهي مهوشيه قفك مسلم كيوح الرميسي نفتي سي قلبي سبا بين أصبعين من أصابع الرحمن الكترة يقلبها كيف يشاء سيد الدونين وقال له الركرغي سبحانه وتعالى وحرميسي هي مال كستاء أدقى وقاله نفتو إن كل ضعيف سكتي وخلق الإنسان ضعيفا وضعيف سافا إذن وحو كحوقي هاي مركو إلهي كتير صدى سبحانه وتعالى وحو أركا يا نفتي سويني خطر كتشرته معي خطر كتشرته شهوة نفسها بي خطر كتشرته قفك مؤمن كعدوغا إلهي كفوقيه الجنة كدركيان نار حيوان سغمد ولو كانت نفسه التي بين جانبيها نهاها تواسغمد اسكسبوا إلهي وغم قنقلا عدوغا خارجيغا قال له الشيطان له يمركي نفتي سباي نقطه توقع السنيو وحو إلهي كبرية سبحانه وتعالى جناد واحفظ ضماها إنه وحويان أعماشي ووينيد كبائرته ونبي وكت المامي الموبقات كوا وحلاقة أياتي مسكحدين نوصلنا ونغنسي وصلنا ونغنسي أكتينا اللي وسميني الصورة دي دينو أركيني أيوة حينالتها هيبا كوب شهر العبي وحوي بماها لكن نبي الله يوسف حفظه وحب الله معها مرككا حفظه وحب الله معها ولذلك وحو استعظام سنيا لوين نزينا كدعو دبسنتها ميلك لدايه هدو ميلك لو كبحسد وايو وماشي كبحسنيا حبسي انتهي طريقه كلا انا فرين ايو وحو الهي بريا يا انه حبسك كدورنيو هدي طريقه لين وايو لو بدباد markaas buu xulay rabbi sijnu ahabbu ilay ilaahay xabsiga ayaa agteeda looga kalgacal badan yahay waxay haweenkaas igu yeedhayaan mimma yad'unani ilayhi imka wa jamaa oo way haweenkii meesha fadhiyay ee loo keenay waa kuwii bilaabay ma hada bashara in hada illa malakun karim dabatana safkii islaanta la qaacay marka waa jamaa dhan hadda soo dhaaftay islaantii qurahay سادرادد بو حليه إلهي وحا أكتيد حبسك لك جعل يحي مما يدعونني إليه جماعة طري وحي يقول واطيان إلهي ودانا ديك صفنا وياك حين بولا يكون كيد كودي يدقرتو دانا أصبو إليهن كيد النساء مركي تهي مسألة الشهوة مين كستوى عقل بدن حقك اللي يروي كره هذا مسألة خطرة ولذلك وحا لينا فري إن الباب بدن أو دمك هربا وحلا يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مؤمنين توحت هذا شيء ندور صلاة والنبي تلمامي صلوات الله وسلامه عليه إياكم الجلوس في الطرقات ودويكها فريسننا ما كم مرة النبي مركي يرهدنا وحلا حق هذا الصية حق هذا محاكم إذا مركي يرهدنا وحلا يغضوا البصر إيش عشده والنبي تلمامي يعرف كده هراق رأي الله لكن طلبات مليه حديث علي النبي تلمامي والنبي صلوات الله وسلامه عليه تلمامي wax allaaliya nafta waxan meeshan geynayo dhan marka hore la awdo oo ay kamid tahay qaawanidu oo ilaahay subhanahu wa ta'ala inooga digay ya bani aadam qad anzalna alaykum libaasan yuwari sawatikum warisha wa libaasu taqwa dhalika khayr dhalika min ayati llahi la'allahum yatadhakkarun ilaahay subhanahu wa ta'ala qissatu aadam inooga soo digay inuu isqaawisku mamnuuciye haweenku رسوش الرجل سوتش اللي سيرانا استعمالين ما كان يسوق مرسو عطت كان يسبوف سكنيه وحكري والرسالة هاي صايك بل وحل الديدي عطت شوالين يكون هذا شو يا نساء النبي إلهي محت المامي هوانك النبي صلوات الله وسلامه عليه أيال لها فلا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض كوا كلام حاضم عليه هذا الكهتش تشبنين بالين يعني كوا قلبه جود بكاي جسوهم قريبين وحي الله سبحانه وتعالى الديدي صوتك عدك الدا إنه نقضاء هذا المثير وحل الديدي صعد يشجع ديسو إنه يساوي وحسوي شيء دينية ومحلة المام ولا يضربنا إلهي بحث المام ولا يضربنا بأرجلهن عجاها كلها كله فنفانين بالي ليعلم ما يخفينا من زينه سين له وقاده وحا يقرنيا شمشمة ثاني وفيرس الشياطين الانسي وحرفان
gabadh kasta kabaha laga iibiyaa gabadhu waa kacab dheer buu leeyahay cirib dheer maxaa dumarka kaba isku siman loo siin waayo waxa loo siin waayo waa falsafati tamayul waxaa la rabaa inay dheeldheelido dheeldheeligeeda wax badan tilmaamaya kaba dumar dhammaantood waa qaraafiic habar yar hadday dhinacaaga maraysa waad garanaysaa dhagtaad maqlaysaa in hadduu dhinacaaga maraya garan maysa sababtu waa maxay shayaaiin linsi waljini yuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqawli gurura waxa kan way isu waxyoodeen waa falsafa ah inaan gabadhu marna jidhkeedu sinmin oo hadday ka gaaban oo dhulka leeg ay qaadato sidii bashar caadi habay u socon lahayd oo degan laakiin marka kab dheer loo xidho waa inay dheeldheelida kab kastoo dumar uu sitaa hoostay qaraafiic ka tay kabaa raggu ma sanqadhaan kab kastoo dumar seeta hadday gabadha agtaada marayso qudhufteeda ama buur ha seeto ama waxay doontaa seeto waa kab sanqadhaysa un kabta dhawaqeeda iyo garaacisteeda ayaad maqlaysaa waxaa ka muuqata haddii la rabo inaan waxaan lagu dhicin waxaa muhima in marka hore la awdaa albaabkeeda oo dhan haddii halkaa lasoo dhaafase oo environmentka noocaasi aad soo dhex gasho nin ra ka tegay unbaa sugnaada markaa nin ra ka tegay ayuunbaa sugnaada walidalik buu nebi yuusuf ilaahay baryaya subxaana wa tacaala inuu xabsigu ka roon yahay kuwa kani meesha ay ugu yeedhayaan ilahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala faاstajaaba lahu rabuh fasarafa canhu kaydahun inahu huwa asamiicu alcaliim ilahay subxaana wa tacaala ducadiisi uu ka aqbalay kayskii dumarkanna waa ka kaxeeyey waxaan leenahay naftu bini aadamka ahi waa baahi ay qabto waxa kani ilahay wuxuu ugu talagalay subxaana wa tacaala suu nasligu u joogtoobo inuu baahidan qofku yeesho waxaa loogu talagalay baahida tani si sharciya inuu qofku u sameeyo oo uu arrinka kan u samayn karo walidalik ayaa ilahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa ragga iyo haweenka cilaaqada ka dhaxaysa inay tahay cilaaqa khatara taarikh albashariyana waxaa la yaqaanaa mar kastoo cilaaqadaasi ay fasaado fi taarikh waa mar kastoo basharku uu ila alxadiid qabto xagga dhulka hoose u qabto sidaa awgeed ayuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu ina barayaa inaynu meesha tan zinadan iyo waxa ku saabsan oo dhan inaynu albaabkooda awdno oo qofka mu'minkii uu ka joogsado dhibtaasi kow waxaa la faray markaas inuu rag iyo dumarba la dhowro isha waxaa la isfaray haweenku iyagoo cadar sita inaanay soo bixin waxaa la isfaray haweenku inay zayi islaamiyo xishmadi ka muuqato ay qaataan waxaa la isfaray inaanay codkooda jajabinin waxaa la isfaray inaanay cagaha dhulka ku garaacin waxaa la isfaray ziinadooda inaanay dabadda usoo dhigin waxaasoo dhami waxa weeyaan qofka mu'minka ahina inuu waxaan o dhan ka fogaado weeyaan basharku nuqdadatan aada buu daciif ugu yahy walidalik ba xataa kuwan dhaqaalaha ka fekeraya insaanka markii la daraaseeyey ee la ogaaday inuu meesha tan aada ugu jilicsan yahay ayaa waxaa laga dhigay inuu noqdo suwarka musiirka ahi iclaanan likulli shay iclaanaadka ma egteen xayaysiis aan gabadh tafaxaydani ku jirin ma jiro haddii taayir la xayaysiinayo horta tuqaawan baad soo boodaysaa marka taarika kadib aad arkaysaa taayir gaadhi oo laga warramay taayir iyo gabadh maxaa iskaga xidhan yani waxay haddii taayir la xayaysiinaya in laga warramo adaygiisa iyo suu neefta uxejiyey iyo soo kano oo macno taayir la xayaysiiyo laakiin iyadoo taayir la xayaysiinaya marka hore gabadh qaawan la keenaya markuu qofku intibaahiisu ninku markuu soo jeestay xoog loo eego ayaa taayir ordaya ama gaadhi xiimaya soo baxaya dabeetana waayo nafta bini aadamka markay daraaseeyeen waxa la ogaaday sida loogu jajabay ma jirto sheekadan tidhaahda ma jiro nadra bari'a iyo ikhtilaaq bari'a iyo waxaasi ma jiraan xataa ma waxay yidhahdaan gharaistu shabaca ma gaadhaba dheregi ma jirta bay yidhahdaan ee shuduud iyo inxiraafkuma kusii bata waxay yidhahdeen zinadan iyo waxa kan kala celintan dadka la kala celinayaababa dhibta keentay haddii la isku soo dayin lahaa wax waliba iska caadi bay noqon lahayn waa la isku soo daayay waxa la yidhi waliba yaan cuqdad laga qaadin ha loo dhigo
ilmaha yari markuu iskuulka galo dugsiga hoose iyo meelaha Yurub la isugu dhiga iyagu waxay yidhaahdaan ilmuhu siduu uurka u galay iyo siduu u dhashay waxaasa la baraya laakiin waa sheekay zinadu ma la rabaa in la baro waayo waxay ka dhaadhiciyeen Freud iyo falsafadoodii inuu yahay caqliga bini aadamku xanuun inay ku dhacaan gabigiisaba waalida keena haddii rag iyo dumarka la kala celiyo هذه هي فلسفة يعني ضابطة وعلومتنا إنه شيء psychology علم النفس شيء العلم النفسي التحليلي ولي بوحي هذان وحكوس ليسين فكرات كذا بيسين تبضنا إن الحرية إن لقد جاء سكس كابيجي شيء مشاع ويكدجه وحي هذان نوحو بقي لقد جاء أصيب بحي إلى الانحراف والشذوذ إلى يوم نقضي وحي لا كبين لفوله ضد يدبر يحول وحول بين الفوله ومركي انحراف وحي هيدا هدي رجل دمرك اللي اسكو سي دايه وحنين نقضه محي وحاديه لكن وحي لين مركي اللي اسكو سي دايه كسي درته وحي نقطه وح محي تصورات كبشر كبك بحسن فعلا شهوة نفس ومسألة علاج بها إلهي سبحانه وتعالى علاج كذا نوقفت الماضي إنه يهي إحصان إنه يهي قفك مسلم كينو بورسده إن أن هنتدو علمين دك بور كودا وأنكح الأيام منكم الصالحين إلهي وحلي أقورية كوي أن قور لحين إيوه دك ونفسني يا دوميه إن إيوه الرقي الضمر بعض دوماء إن يكونوا وحلت الماما يهدي فقريهين إلهي بغى يعني عنصر المال ينقلني وحقور كي سرت قبل لي أول شيء ما كان وحلاني وحا فضيلية كواد قفك مسلم كاعلية وقور سادر هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وهت المام يا معشر الشباب ورنا لي روي نكي قور سكرة وقور سبو نبي من استطاع منكم الباء فليتزوج نكي قور سكرة أقور سدبو نبي صلوات الله وسلامه عليه حلك أولية هي وقفي عن واقع قفك مسلم كاي إنه قور سبو حلك اللي بعد أولية وحويا عبادية الله وحدنا يقفك إنه إلهي مرنب إلا به سبحانه وتعالى ويقوه الرئيس الصوم وينبغ صلوات الله وسلامه عليه أن يرده وحكيري منك قرسن كرواية فعليه بيصوم ليه isaga waxa korkiisa saaran inuu soomo fa in lahu ka soonka wuxuu ku leeyahay baa la yiri maxay dhufaanimo wajaa soonkaas ba ilaalinaye ha soomo bala tilma waxaan leenahay cibaada oo kamid yahay zuhdu oo kamid yahay baan leenahay khushunatul aish haday naftu aad aragtay inay qooqday gaajadu way qooq jabisay nafta إنسان يعباد هبينكينا لتاغو مالتينا لسوميا waxay noqonaysaa inuu hunguriga kan ilaabo oo dhigo laakiin hadii la dhergiyo oo markay u baahato la cunsiyo oo marka aanay u baahana dadka kale lagu daydo la sii cuno oo caloosha sii buux dhaafto oo hareerahana bi'ada faasidka lagu sii noolaado oo TV-ga marka furto tiiqaawaneed ka soo boodo oo albaabka marka ka baxdo tiiqaawaneed taagan tahay oo shaqada taad ugu tagtay si kale oo qaawan tahay oo waxa laga hadlayo dhamoo noqdo waxa kan ila dhowr sanaata hadana waa mas'ala fududay ninka horta halka ku dhowr sanaaday haniyeysto waa kuwa uu nabigu leeyahay jannay helayaan waa kuwa la leeyahay cabshur rahmaan bay harsanayaan waa kuwa la tilmaamayo in ducadooda ay mustajaab ka tahay ee ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga faydayo waxa kale oo kamid ah shariicadu ku ilaalisay in xuduud badel loo dajiyay حد زناد ولا ليه جلد وشرو رجم وشرو وحصل من الشرع إلى أين قرآن سبحانه وتعالى وحنوت المامية ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وحيدون ينبال ليه سبحانه وتعالى قوة نفط وحيدون شيء كالراعي إن إذن واعيان وعشوين بقى ليه سبحانه وتعالى إلهينا محدونية ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إلهينا محدونية ونرى شيء فضيلية إنسان كنا مركه هربا يسوق ضعيف الله أبو ريبا لله سبحانه وتعالى
هل مسألة تنمك وفطرة بني آدم ولا ما ضفري كره نينو قبلوا باهي وحقيقة شرته قبلين إنه باهنتهاي وحقيقة شرته عيب ما إلهي بكو أبو ري سبحانه وتعالى لبدا لكن وحلا وطلق لي سئو مجتمع أرد السنادة إن لو بتو إن نقطة شهوة ومسؤولية لقاضيه ونك مسؤولية جور غير عفور أي دم جليان إن أنا نقولن شهوة عابرة قفكم ماشي الضنام تكون صيره إنه كبر حين أنا نقولن ولذلك وحنا لنا مسألة دني ومسائل كأو خطر بدن لدتك قلبك كشوه أنت بدنا عن حل كده دتك يسويدين معلوم البعض ركتنا اللي يرد يريري وصيد عظمس وحو قرآن الله صار تقوم لهم مساعد كشوه وما كل دوري تبشر قاعده ون لوايبه أنت يريرين قرآن الله رجع مساعد علوه ما أنت تدبي تقول لها قاعده أنا مرد بالله كماي وحو قرآن دتك اللوه كراوه هي إن ما أنت تدبي تبغى كشوه ولا غوري غور حلاله تو حلاله لو قدره إن أنت مركز شوق عن قاعده بتو حلاله لو قدره أنت يدك اللي فساد كلا سمين لها تو حلاله لو قدره إن لا تربية يدك كانين أي نفس حكرة لكن مسألة سيدة دتك موضة يعني يسقف ضدها ويسقط له صنع كرمها ولي بمركز للشوق بيئة فاسد كه يعني بيئة مسلمة مركز شوقته ومع صيدا كل يقطعي وضدك يسكح حجامية أما على الأقل حشون أيه على الأقل ويهي ضد حشوط يولي وقدم بايه ورقي الدمر اللي يسكسين إحدايا ما يتصال لنا يعني يشرين ومدرسة ما يسكول خيرا وتقان وحن لو غشيا كيننا ما لو آخرين ولا هي وقفكم نفتي سينو وحوغا إلى الكرية لكن مركب بيئة فاسد كاو سيقالو دوك سيقال لو قد قيو تيفيقي وكدعوانا ايو شقادي وكارخيو وإن نقطي وحلقة بايع مشتريو وجرايك وقلت رضا بدل له تي في وقلت رضا بدل له افلام وقلت رضا بدل له دما انت يقولون كانوا كورميا وقف كده كاتبه انه ميل وكغ بخاو هلو waxa qura uu kaga bixi karaa waxa weeyaan in qofka loo guuriyo ahsan tariiqa waa qof kasta oo muslima oo guursan kara inuu guursado inaan waxba dib u dhigin qof kasta oo muslima oo guursan kara inuu guursado waalidku inay fudaydiyaan oo ay ka daayaan protocolkan tirada badan leeyahay hantida tan iyo waxaan oo dhan laga fudaydiyo waa ilmahagu inuu ku dhowrsanaado haduu inay yahayba ayaa adiga khayrku kugu jira inuu ku dhowrsanaado oo aanu ka saaqidin ama aanu ka lumin ayaa khayrku kugu jira sadradeed in la fudaydiyo wax badan oo protocolaadka tirada badan laga daayo oo noqdo dadku ilaahay kelmadiisa inay isku banaystaan dabeetana ay xalaal soo ahaadaan waxaan ku soo koobaya wuxuu yahay shaytaan ولا تتبعوا خطوات الشيطان بإلهنا ليه قولوا في السلم كافة سلام نمض ولا قلب إلهي وطلابات الشيطان تلابوين كالشيطانك الراعنا الشيطانك يعني مربى طلابك قاسينيا ما أنت هوري هذا الشيء كذا تمرك كسور ديرته ما أنت لو أنا واحد كسير ديرتها بل وده شوقه ما أنت صدحاده حسي فضضانية حشوتي يوحيدين لحي سيدا يوصي سعطوا خطوات الشيطان مدي ما مد بيكون لي بيس مالك وقبقبوه بس ما شرته إلى فساد كمويان ولذلك بوحى لنا الوقاية خير من العلاج مشكلة كأن مركو هو وقاية الله استعماله دور سوني ده إلا استعماله كهرتقى إلا استعماله أي واحد كرون طهي علاج الله استعماله فحبوا سوكوبي يا مركا إلهي حين لا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين حب الشهوات مرة دي الشيء ولوجوه الرئيسية من النساء وحيث المام يسميه شيء كذا شفت مسألة ثانية هلا ناديك على دوره وأفكان الله دوره تاني بقول بالله قاضي صلوات الله وسلامه عليه عدي أفكيس هي فرجي سنوطة يا مسلمين وسنا جنة وبالله أضمن له الجنة أبو نبي لو وضع ضغط كأطه جنة واجرت أبو نبي عليه صلوات الله وسلامه عليه نفط يديتينا وحقول دار بين إلهي كعب سبحانه وتعالى
dareennana qalqallooca nafta bini aadamka ay leedahay waa inaan daawo ku dayine ka hortaga inaynu ku dayno iyo albaabadaas oo dhan saynu xidhi lahayn. مع تحيات تسجيلات التوفيق الإسلامية بأوسلو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.